caawa waxa weeyaan waa habeen qof waliba marxalad buu soo maraa marxalado kala gedisan baan soo maray caawa waa habeenkii koowaad ee aan macasalaameynayay bahda saxaafadda waxaan idin leeyahay wada shaqayn wanaagsan sidaa darteed caawa waxaan go'aansaday inaan fiilkii hore aan ku jiray ka baxo oo aan galo saxaafadda aan ka baxo oo aan galo siyaasadda weliba siyaasadda waxaan ka doortay caawa inaan ku biiro xisbiga waddani waa go'aan si dhaba iga soo baxay haddaba su'aasha isweyddiintahay waxay tahay maxaan ku doortay xisbiga waddani waxaan bulshada caawa u iftiiminayaa 3 hoggaamiyaa jira oo dunida 3 hoggaamiyaa ka jira hoggaamiye keligii taliyaha hoggaamiye xulafaystaa iyo hoggaamiyaha shacbi runtii 3 musharax ee maanta codkaydii ka doonaya reer Soomaalilaanow 3daasay keliya waxa weeyaan musharaxa xisbiga waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi waa musharax shacbiga afkaartiisa iyo maqalkiisa iyo hadba duruufta ay ku sugan yihiin ka jawi qaata runtii bulshada Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa caawa inay ka qayb qaataan isbeddelka ifaya waxaynu ognahay oo aynu in badan ku soo jirray caburin musuqmaasuq waxa ugu dambaysay oo habeen dhawayta halkan iyo maalin dhawayd ka dhacaysay bulshada Soomaaliland inaanay sinnayn waxaa dhacday in la yidhaahdo bulshada Soomaaliland qaybna waa la xukumayaa qaybina waxbay xukumaysaa bulshada reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa miyay taasiina faclaan qaar in la xukumo weligood qaarna ay wax ku xukumaan sidaa miyuu dal ku dhismayaa waa waxaan dhici karin bulshada reer Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa inay qarankan badbaadiyaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh